waxaan qayb ka noqon doonaa kolonyo ciidanka kumaandooska Soomaaliyeed ee xoogga dalka ciidankan waxa ay qayb ka noqon doonaa hawlgalkaas halkaan tagno iyo sida uu u dhaco daawasho wanaagsan ila socod daawada ciidanka sida gaarka u tababaran ee kumaandooska danab waa kuwa loo carbiyay bacsiga al-shabaab waxayna hadda ku wajahan yihiin deegaano ay nabadiidku ku dhibaateynayaan shacabka aan waxba galabsan hawlgalkan ayaa qayb ka ah hawlgallada lagu burburinayo fariisimaha cadowga nabadiidka al-shabaab oo ah kuwa tabartoodu si ay si yaraanayso ayaa kadib markii ay u babac dhigi waayeen xuduudda ciidamada kumaandooska danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed waxay tabar ka dhigteen inay faruraan kanaalada biyo mareennada ah ee ku yaala deegaanadan si ay u joogsadaan hawlgalladan ka dhanka ah iyaga balse taasi ma noqon mid celisa ciidanka kumaandooska danab waxayna ahaayeen kuwa sii wata shaqadoodii loo carbiyay dhulku waa dhul barwaaqo ah oo markaad ku dhex sugan tahay aad dareemayso inaad joogto goob qurux badan oo alla ku manaystay nimco deegaanada hawlgalku ka dhacay ayaa ahaa deegaanada Mubaarak iyo Daarasalaam ee hoostaga degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose deegaanadan ayaa nabadiidka shabaab u ahaa goob ay ka dhigtaan gabaad isla markaana ay ka soo abaabulaan waxyaabaha ay ku dhibaateynayaan dadka shacabka ah kooxda al-shabaab ayaa deegaanka Mubaarak ku lahaa goob ay ugu magac dareen maxkamad beenaadka halkaasi oo ay ku dhici jireen dadka shacabka ah isla markaana ay ku saari jireen maxkamad beenaadka balse waxaa burburiyay taas ciidanka kumaandooska danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed hawlgalkan ayaa waxa hogaaminayay taliyaha ururka afraad ee guutada 16aad ee kumaandooska danab laba xidigle Maxamed Salebaan taliyaha ayaa waxa uu sheegay in hawlgalkan lagu guuleystay isla markaana lagu burburiyay fariisimo ay cadowga halkaasi ku lahaayeen hawlgalkan ayaa qayb ka ah hawlgalka sifaynta nabadiidka al-shabaab ee guud ahaan dalkeena Soomaaliya looga xoreynayo